halkaasuu ka dhacay ninkii aan ku aragnay wuxuusan weligii ka waaqsanan ku samaynayna hadda ogaadaya sax waayaa leediina bahashii aan ku jirto laakiin waa xunta idinkoo dhan waa caafimaad leh waxbarasho leh cunto leh dhibaatada maanta asluuba eladiballa inay ka saarto oo waddada xarayna xaraa ladigay sariir edeb wanaaga lidin wadaa wanaaga ayda qaata xumaana linka hebaya xumaanta ka dheeraa ogolaada daraagada la soo qabtay ugu soo qabtay nimanka magaalada ka tagi weysay oo ku hayay muqaadiraadka iyo dhibaatada marka saas tiraadad maanta waxa waaye maama waa la gooy meel fagaaraha lagu gooy maama wiilaa jooga howlgal oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku qaaday magaalada Xamar ciyaalkii yaryaraa iyo oo ahaa nimankii magaalada ku dacdareysnaa oo draagiska iyo wax walbaba iyo dafidda wax walba ku dhaqmayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed annagoo fulinayna amarka taliyaha guud ee ciidanka asluubta kuwaasoo loogu talagalay in dib loo xanaaneeyo say u helaan xanaano jireed mid cunno mid caafimaad mid dawo iyo waxbarasho siday u helaan oo loo dayactiro meeshana ku sii joogsan mayso way soconaysaa hadduu alla yidhaahdo marka sidaas ayay arrintu tahay operation saaka la qaaday oo taariikhdu ay tahay 11 bisha koowaad waxaa lagu guulaystay operationkaas in lagu soo ururiyo dad gaaraya 120 qof taasoo amniga iyo bilicda horseed u ah taasoo horseed u ah nabadgelyada taasoo horseed u ah ummadda isheeda ay arkayso waxa wanaagsan taliska ciidanka asluubta oo kaashanaya maamulka gobolka iyo booliiska waxay maanta ku guulaysteen inay soo qabtaan dadka inta tirada leeg dadkaas waa la kala saari doonaa waxa loo kala saari doonaa kategoriya loo kala saari doonaa waa qaar waxa la geynayaa hadii alla in meelaha loogu tala galay meel walba qolo kasta meesha ay leedahay la geynayaa waa la dhaqan celinayaa waxba la barayaa waxa lagu soo celinayaa nolosha hore ee asaaska ahayd waxa laga sameeyay gobolka Banaadir waxa laga sameeyay Xamar Jajab Xamar Weyne iyo Waabari inta iska galaan waa laga sameeyay operation iyo lambar 4 intaas waa laga